waxaa iyaguna soo bilowday ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo ah ciidamada qalabka sida ka mid ah oo aad aragtaan inuu hogaaminayo taliye ka tirsan ciidanka asluubta uuna u sido calankoodii gaarka u ahaa asluubta Soomaaliyeed ka tirsan iyo laba ka tirsan ciidamada asluubta oo iyaguna ku jeeni qaaran qoriga ay ku difaacayaan dalka hooyo ee waajibaadkoodana ay ku gudanayaan ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxa uu qaabilsan yahay ummadda Soomaaliyeed waajibkiisa gaarka ah oo ah ilaalinta xabsiyada iyo difaacaadka dalka hooyo iyo ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxyaalaha kale ugu xilsaaray waxa kamid ah barbaarinta dhalimaha kacaanka xarumaha dhalimaha kacaanka ee gobolada dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya waxa maamula ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo iyagu dhalinyaradaasi ay aragtaan ee imanka fagaaraha ku maraya halkaasi 22 Oktoobar ee talaanka bixinaya ay yihiin soo barbaariyay ee soo abaabiyay iyaga oo yaryar intaasina ka soo saaray ciidanka asluubta Soomaaliyeed gabdhaha kacaanka Soomaaliyeed ee afgooye weeyaan kuwaas ugu soo horeeya dhalimaha kacaanka ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaana mahaddaasi iska leh iyo barbaarintaasi ay aragtaan ubadka Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah ee xoogagaasi ku soo saaray waxa weeyaan gabdhaha kacaanka oo xaruntoodu ay ku taalo magaalada afgooye oo ka soo qayb galay dabaaldegga kuwanina waxa ay yihiin wiilasha dhalinta kacaanka oo iyaguna ku yaala Lafoole oo ka mid ah iyaguna xarumaha ay maamulaan ciidamada asluubta Soomaaliyeed shacabka ayaa loo garaacaya salaantii ayaa ay dhiibeen kadibna horay eegtii ayaa uu dhiibay taliyihii watay ee ahaa ninka dhalinyarada ah ee hogaaminaya horimaha si weyn ayaana ula dhacay Saale Maxamed Siyaad Barre madaxweyne ku-xigeenada guddiga siyaasadda iyo golaha ciidanka asluubta cusubiyadii ka tirsanaa oo imanka soo bilowday markii ay dhammaadeen dhalinta kacaanka ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin daafacaadda dalka hooyo cadow kasta oo isku daya inuu soo weeraro dalkeenana waxa ay u ballan qaadeen in ay sadihiisa ama abaalkiisa ay mariyaan waxaana ay ka muuqdaan arrimahaas sida fircoonida leh ee dhiigga leh ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed halkan ay u marayaan maanta ciidankii asluubta oo horimahoodii kala duwanaa ay hogaaminayaan waxa ka mid ah haatana waxaa soo bilowday ciidanka booliska Soomaaliyeed ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa isaguna ka mid ah ciidamada qalabka sida ee halkan maanta soo maraya ciidanka booliska Soomaaliyeed waa ka mas'uulka xasiloonida iyo nabadgelyada dalkeena Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya gudihiisa isla marhaantaasina ka qayb qaata daafacaadda dalka hooyo marka uu baahdo waa taliyihii watay ciidanka booliska furimaha kala gadisan halkan uga codey jiraya ciidanka booliska Soomaaliyeed walba waxa watanin taliye ah oo isagu salaanta dhiibaya salaantii buu dhiibay marka horay eegtiina mar ugu siin doona sida bal eeg ay safka aanay marnaba aanay isla seegeen qalloo ciyaarina aanu ka galin salaantii ayaa u dhiibay taliye u darban salaanta
kuwanina waxa ay yihiin gabdhaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyadoo ciidanka booliska Soomaaliyeed raguna aan ka koobanayna gabdhuhuna qaybtooda ay ka qaataan oo qayb walba ka tirsan bulshada gabdhuhu maanta ay ka tirsan yihiin waxa socda ciidankii booliska Soomaaliyeed qaybihii kala duwanaa ee ka tirsanaa warin walba waxa hogaaminaya nin taliye ah waxa ay ku gaadhay in qorigoodii ay ku difaacayeen dalka waxa socda warimada kala duwan ee ciidanka booliska Soomaaliyeed هذا واحد صوب لو ذي قيب كلا وقت ترتن عيدا كبولة الصومالية ده أهنا دراوشة وحي عيدا ماذا دراوش هذه الشيء بسيدة أو بطل القاطع دافعات دلكويو وكوحو أمس عصبيو أمس هرمو له عربي لو كسران كرو ودافع دلكينه هويو أين كل ذكره ونوا كوح ولبس كلاشة أو كترتن عيدا كبولة الصومالية ورين كله أو كترتن يدنا إلى عيدا كراوشة خليه هو دي أي كلام تبيه أي مكان كراوشتي ويان أو مجا عيب وحي كتيران سيد محمد عبد الله حسن تقاليه في الصومالية يدراوشتي إذا ما تراوشت الصوماليات وكتبتن عيدا كبوليس الصوماليات ciidamada daraawishta ciidan ka booliska Soomaaliyeed koox waliba marka ay halkaas marayso ayaa ay salaanta ay ku bixinayaan waxa ay idin aragtaan iyada oo ay soo bilaabeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo hogaaminayo inkaasi ay arkaan wada garanaysa maan maleynaya waa Tambalowshi haweeye taliye ku-xigeenka xoogga dalka ee dugsiga sare halanaya ina fara badan ayaa daawanaya marka ay soo muuqdeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo hogaaminayo sarkaalkaasi ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ay ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana ugu horeeya ardada haatan ku jirta tababarka xalane waxa ay u qaabilsan yihiin ardadani aabte ay u qaybsan yihiin hurmooyin kala gedisan iyada oo kooxdan ka tirsan halkan maraysa ee ku jirta dugsiga tababarka ee xalane oo ardadii ka soo baxday dugsiyada sare ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya ay tahay kooxdii ugu badnayd ee dugsigaasi dugsiyada sare iyadoo ay ka kooban yihiin hurmo oo halkan dugsiga 22 Oktoobar ay ku marayaan magaalahan waxaana hogaaminaya macallimiintoodii dugsiga tababarka ee xalane haweeyaan kuwanina qaar ka tirsan dugsiga tababarka ee xalane ardayda dugsiyada sare ka soo baxday ee ku jirta dugsiga tababarka xalane halkaas carbiska ku qaadata gaar ahaan tani waxa ay tahay hurin gabdha ah hurin walba waxa hogaaminaya nin isagu sarkaal iyo qaybo kale oo u sida calanka kalasiyaade iyo madaxweyne ku-xigeenada guddiga siyaasadda iyo golaha dhexe si weyn ayaa ay ula dhacayaan waa hurimo kale oo ka tirsan isla dugsiga tababarka ee xalane kalasiyaad iyo madaxduba si weyn ayaa ay ula socotaa koox kasta oo soo barta halkan gaar ahaan imaka waxa aad aragtaa inay daawanayaan xalane madaxweyne ku-xigeenada ayaa hareeraha ka fadhiya kalasiyaad
dugsiga tababarka ee xalane waxa uu yahay goobta soo saarta warshada kuwii difaaca dalka way ka qayb qaadan lahaa madaxdana si weyn ayaa isu riyaaqaysaa oo shacabka ay u fudayaan sarkaalkaasi ayaa wato salaanta ay aragtaan in uu isla qalloociyey imankana horay eegsi ayaa uu siinayaa ayaa ay jaalasiyaadkii madaxweyne xigeenada koowaad jaaleysanada ibraahim madaxweyne xigeenka labaad jaalasiyaga gudankii tale axmed suleymaan cabdalla oo ka tirsan guddiga siyaasadda ay u daawanayaan dugsiga tababarka xaalane oo haatan aad aragtaan urimooyinkaasi kala gedisan ee uu ka kooban yahay ee fagaaraha 22 oktoobar ku maraya socodka gaardiga ee quruxda badan shacabka ayuu garaacay jaalasiyaad iyo madaxda kaleeda waxaa soo bilowday kadib markii ay dhammaadeen kuwaasi ciidamada badda ee xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay yihiin kuwa ka mas'uulka ilaalinta xeebaha Soomaaliyeed iyada oo dalkeena Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya uu leeyahay xeeb aad u dheer oo dheeraysan 3330 kiiloomitir taasi oo ah Afrika ugu dheer Afrikada xorta ah marka laga reebo Koonfurta Afrika xeebtaasina ciidankaasi aad aragto ayaa ay mukulladnaa sidii ay u ilaalin lahaayeen ee ay uga yurayn lahaayeen cadow kasta oo isku daya in uu dalka Soomaaliya uu ka soo galo dhinaca xeebaha waa kooxahaasi aad aragtaan ee hurmooyinka u qaabilsan ee mariinada jaalasiyaadna uu si aad ugu daawanayo ciidamada badda ayaa socda ilaa iyo haatan horin ka mid ah ayaana socdaa ciidamada baddu markay dhammaadeen haatan waxaa soo bilowday qaybihii kala duwanaa ee ku koobnaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haddii ay aan leedahay qaybta kala duwan iyada oo madaxweynuhuna qayb kastoo soo marta halkan uu si gaar ah ula socdo waa hurimo kale oo ka tirsan ciidamada lugta ee ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidamada lugta ee xoogga dalka Soomaaliyeed qaybaha kale ee imika maraya iyada oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenada iyo madaxda kale ka soo qayb gashay ay daawanayaan ciidamada lugta ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya waxa ay yihiin kuwa u diiday cadowga ummadda Soomaaliyeed in uu ku soo xadgudbo oo taaka ka tirsan dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya oo soo dhigo cagta waxa ay yihiin ciidamada lugta daafaca cirka ayaa haatan uga socda xoogga dalka Soomaaliyeed cusubiyada ka tirsan meelaha soo maraya maanta aad iyo aad ayaa u fara badan yihiin waxaana ay isugu dhafan yihiin isugu jiraan kuwa lugta kuwa cirka kuwa dhulka kuwa daafaca cirka kuwa lidka diyaaradaha iyo qaybaha kala duwan oo fara badan oo halkan maanta ka soo qayb haatan waxaa socda hurimadii kala duwanaa ee ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed
madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Sheekh Maxamed Siyaad Barre oo guddiga ku dhajisan ayaa haatan ay aragtaa waxa uu heliyay Sheekh Maxamed Siyaad Barre guddiga siyaasadda kulaha dhexe guddiga gudaha gacanka Soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka koowaad Sheekh Samatar madaxweyne ku-xigeenka labaad Sheekh Taliyaha Xuseen Kuliya Farxii Sheekh Axmed Cabdulla oo xigta ah guddiga siyaasadda waxa ku hoos qoran hanoolaado sanad guurida Afrikanaad ee curashada kacaanka 22 Oktoobar waa si ay aragtaan ee xooga gaasina waa kuwa miisiga u garaacaya xooga kala gadisan ee maanta halkan ku soo maraya socodka waxa miisiga ee ciidamada qalabka kooxo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa haatan socdaha qaybahoodii kale iyaga oo isugu dhafan qaybo fara badan oo ah qaybahooda kala duwan ee uu ka kooban yahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay u marayaan waa ay aragtaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybahani ay yihiin imaka qaybo kale oo ka tirsan iyaguna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dugsiga tababarka xalane haatan waxa socda hurmadii kala duwanaa ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaar ka tirsan oo halkan iyo matalaya gaar ahaan dugsiga tababarka xalan ay u badan yihiin ayaa ay daba taala iyagoo isku daba xiriirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Sheekh Maxamed Siyaad Barre iyo madaxweyne ku-xigeenka koowaad Sheekh Samatar oo si gaar ah ula socdaha ciidamada qaybo kale oo hor leh ayaa haatan soo bilowday oo ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ah waa commandosta waa soo bajeestayaasha socod u gaar ah ayaa iyagu leeyihiin madaxduna si gaar ah ayaa ay u eegataa soo majeestayaasha halkan aydin aragtaan ee soo maraya oo iyagu sita uniform u gaar ah oo diyaaradaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa iyaguna ka qayb qaadanaya damaashaadkan iyagoo halka cirka dadka dushooda ku sameynaya dhoolad diyaaradahana way aragtaan iyagoo laba u wada socda sida ay ugu sameynayaan dhoolad sawirka ciidanka cirka Soomaaliyeed waxa uu yahay hawadeena ilaaliya waa ciidamada iyaguna soo majeestayaasha oo iyagoo maraya diyaaradaha
damaashaad leh oo qurux badan ayaa ay u dul marayaan dadka iyagoo dadkuna si aada ay u daawanayaan ciidamada soo majeystayaasha ee ah kamaandowsta ayaa iyaguna fagaaraha maraya xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu yahay midii isagu u diiday dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya cadow kasta oo soo daandaansada isla mar ahaantaasina tusaa darsi lama ilaawaan ah cadow kasta oo isu soo baxaysa in uu taaka ka mid ah dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya uu ku soo xadgudbo waxayna ay yihiin soo majeystayaashan imika kuwa aynu ku libno waxa ay gashan yihiin tuutihii lagu yaqaanay ciidamada soo majeystayaasha ah ee xoogga dalka Soomaaliyeed manka warka diraanaha iyo kuwa wax sawiraba si aad ay ugu mashquulsan yihiin ciidamada wali waxa socdaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybtooda soo majeystayaasha ah dadkuna shacabka ayaa ay u garaacayaan socod gaar ah ayay leeyihiin markaliya ayay isla wada helayaan taanta socodkooda iyo qayladooda iyo hadalkooda nool waxa uu yahay mid argagax ku rida iyo niyad jab had iyo jeer cadowga Soomaaliyeed kaasi waxa uu yahay mid ku rida argagax iyo naxdin iyo qalbi jab cadowga Soomaaliyeed had iyo jeer isku dayaha in uu soo qadaysto ummadda Soomaaliyeed jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya si aad ayaa ula socda iyo madaxweyne Axmed Suleymaan Cabdulla Qasri guddiga siyaasadda ay halkan ay kala socdaan halkan wacdaraha ay ka muuqdaan waxaad ayaa ugu riyaaqaya kale si ay ciidamada halkan marayaan سياد عندما رأى مريا وحيكون واقعيا إريان جزء من يعد وحيكون بين رماء ضفر بدن سياد هو الله تعالى وصل مريا هذا وهو مثلا كتسن أو كوبا قيبة فربضن أو كتسن هي ciidanka soo majeystayaasha ama kamaan joogta ee xoogga dalka Soomaaliyeed soo majeystayaasha kamaan joogta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay ugu waajibkooda iyo kudbi cadowgana baaba iyo hub ka yeela qalabkoodii dagaalku waa ciidan u dhan yahay soo majeystayaashani waxa ay naftooda ay u huraan had iyo jeer daafacaadda dalka hooyo waxayna ay kuwa ummadda Soomaaliyeed ay ku lido kuwa cadowga ummadda Soomaaliyeed goobta kala jabtay halaaga ku badan qalabkooda dagaalkooda iyo koox walba nin kaliya ayaa wata warinka waxaana ay ku dhawaaqayaan erayo naxdin iyo qalbi jab ku rida cadowga siday jaanta isula helayaan iyo ciribtu waa wax la yaab leh waa ciidamo carbisan leh tababar ay ummadda Soomaaliyeed ay isku haleyn karto cadowgu markuu arko kuwaasi oo kale waa kuwa jaanta dib u socda ciidamada soo majeystayaasha ee naftooda hurayaasha kamaan joogta ee xoogga dalka Soomaaliyeed kuwani
iyaga isu musiga iyagu music uma baahna jaantooda iyo ruuxdooda ayaa u musiga kuwanina waxa ay qaar ka tirsan ciidamada soo bajeesayaasha oo gabdhaha rag oo kale kuma koobnaa gabdhuhuna waxa ay ka mid yihiin safafka hore ee daafaca dalka hooyo soo bajeesayaasha ku jira ee dalkeena had iyo jeer ka yureeya cadowga doonaha in uu ku soo dulo waa gabdhihii Soomaaliyeed ee soo bajeesayaasha ahaa ee ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed madaxweynaha iyo madaxda kale ee madaxweynaha ku xigeenada si weyn ayaa ay ugu riyaaqeen وين يا وثلاثيادي يا مدحوينه xigeenada iyo madaxda kale ee guddiga siyaasadda golaha dhexe golaha shacbiga ay ugu reeqayaan Soomaaliyeed halkan hormaraya gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed ee ka tirsan ciidamada Soomaaliyeed صورك مدحوينها جمهورية الديمقراطية الصومالية جل محمد سياد بري يجدك السياسة صور كودا أو كمية وحيالها فرنك فنانين الصومالية حق فرسحان كفر كديري أي كتب نجيب من halka kan maray ayaa iyagu ka music bilaabay kadib markii ay dhamaadeen kooxdii Soomaaliyeed markii dowrayaasha aga wararka fidiya gaar ahaan kuwa wax sawirad si aad ah ayay ugu mashquulsanaayeen sidii Soomaaliyeed iyo xoogaanka marayaba ay soo ugu qadan lahaayeen waa ay aragtaan dadweynaha maanta ka soo qayb galay sida ay u fara badan yihiin waa dadweyne boqolaal ku kor u dhaafay maanta dadweynaha fagaaraha kan daawashada ku yimid banka musiga ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed taliyahaasi ayaa dalbanaya gacmaha u ruuxaya iyaguna waa afgarasho wax waliba waa afgarasho wax walibana waxay u baahan yihiin cilmi iyo aqoon sidaas daraadeed kuwan tababar ayaa ay ku qaateen sida ay uga dhawaatiyaan qalabkaas kuwa la tumo kuwaasa laga tumo iyo kuwa kaleba halkan soo maraya ayaana ay qayb weyn ay ka qaateen sidii ay markaasi ay socodkooda ay ugu fududayn lahaayeen ciyaaraha farshaxanka ee maanta halkan qolada farshaxanka ay ku soo bandhigeen weeye taliyihii oo dalbanaya ciidamada liiska وصفينتا كحدا لما رهان تاتنا وحا ومرنا وكاتا سيبوي تعيشها بكا وديك السياسة وثلاثية ثلاثة مصر مدحوين حقين كوادان وزيد كاشاليكا ثلاثة كلمية أفرح مدحوين حقين كاللباد إيو شال أحمد سليمان عبد الله أو تبيك وديك السياسة qaybo kale oo ka tirsan ayaa haatan soo maraya ciidamada dalka oo iyaguna wata mootooyinkaasi ayaa iyaguna ku dabaaldegayaan oo waa qaybo kale oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybahaasi mootooyinka iyaguna waxaana bilaabi doona fardhow hub iyo waxyaalihii kala duwanaaha ee Soomaaliyeed hubab kala duwan oo gawaadhi ay jiidayaan ayaa halkaasi ku soo bandhigeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed haatan waxaa bilaabmay hubka kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu adeegsado daafacaadda dalka hooyo cadowga Soomaaliyeed shaqka iyo halaaga baaba'a uu ku baday ee cadowga Soomaaliyeed u diiday in uu taaga kamid ah dhulkeena uu ku soo xadgudbo gawaadhi ayaa jiidaya hubkaasi aad iyo aad ayaa ugu noocyo badan dadweynuhuna
si aad iyo aada ayaa ay ula dhacayaan marka ay arkaan ciidamadoodii xoogga dalka Soomaaliyeed qalabkii ay adeegsanayeen ay daafacaada dalka hooyo u adeegsanayeen hubka kala duwan oo halkan lagu soo bandhigay oo qof walba oo ka tirsan dadkaasi hareeraha kaga gadaaman gegidaasi ay aragtaan ayaa shucuuriyay ay kiisa ay isku taagaysaa shucuur wadannimo gawaadhida ay aragtaan waxa ay jiidayaan hubkaasi madaafiicda wax laysa ee gumaada cadowga ayaa loogu talagalay cadow kasta oo dalka Soomaaliyeed u soo xadgudba in lagu baabiyo waa nooc kale oo iyaguna gawaadhi kale oo hor leh oo iyaguna jiidaya madaafiic kala gadisan dadweynaha ku gadaaman hareeraha kala duwan ee gegidatan ay soo marayaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan xoogga dalka Soomaaliyeed qaybihiisii ugu dambeeyay waa hubka waxa ay yihiin qaar aad iyo aad ugu faraxsan sida fiican ee wanaagsan ee halkan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay uga muujinayaan in ay diyaarka u yihiin daafacaada dalka hooyo iyagoo adeegsanaya hubkaasi casriga ee madaafiicdaasi ay aragtaan ay ka mid yihiin ee ay jiidayaan gawaadhidaasi kala gedisan qaar waxay leeyihiin taayir qaar afar taayir qaar kala nooc dadku waa idin aragtaan qaar waa ay fadhiyaan qaarna waa ay taagan waliba dhadhawaa ee waxaad aragtaa in ay soo daba xiriirsan yihiin hubkii kala duwanaa ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ilaa iyo halka uu ku dhamaado laamiga ee ay idin aragtaan ay soo daba xiriirsan yihiin qaybo kale oo hor leh oo ka tirsan hubka halkan ay ku soo bandhigeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan rocket loo yaqaan waa hubka meesha fog wax ka dilaha ee baabiya cadowga godkiisa ku gubay ku baabiya ku walciya waa hub aad aragtaan isagoo uu uniform gashan yahay sidii soomajeestayaasha oo kale waxaana uu la mid yahay soomajeestayaasha oo kale oo cadowga ayaa uu meelaha uu galo ku baabiya ku ololiya dadweynaha faraha badan ee maanta daawashada ka soo qayb galay si aada ayaa markii ay arkeen hubka faraha badan ee maraya ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed adeegsada daafacaada dalka oo ay ugu riyaaqeen waana sida tar taagay hubkiisa socda hore kama qodna hubka ay aragtaan oo mid walba uu la socdo sarkaal ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed qaybo kale ayaa soo bilaabmaya oo ka tirsan hubka xoogga dalka Soomaaliyeed u adeegsado hawlaha daafaca dalka xir iyo dhulba kuwani waxa ay yihiin kuwa lagula dagaalamo diyaaradaha waa hubka isagu soo daadiya diyaaradaha ku soo xadba hawada jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya dhuumahaasi ay idin aragtaan ayaa ay ka holacaan xabaduhu dabeedna dhulka ayay soo dhigaan markiiba diyaaradda gaari baa jiidaya madaafiicda lifta diyaaradaha gawaadhida jiidaya maca waa kala nooc kuwanina afar taayirka leeyihiin qaybo kale oo hubka ka mid ah xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa iyaguna soo horloo gawaadhi kale oo lix shaagil ay jiidayso kuwaasina waxa ay saamamka waa tawaariikhda isla diyaaradaha ee soo daadiya iyaguna diyaarad arkaysa tawaariikhdan caarada qaadeen ayaan soo xogeysan in ay ku soo xadgudubto hawada jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya waa ciidan uu dhan yahay qalabkiisii tababarkiisiina
ay yihiin kuwa lagu soo daadiyo diyaaradaha xadgudubka soo sameeya weli iyagii baa socda dadweynaha si aada ayaa ay u daawanayaan oo ay ula socdaan diyaaradihii baa haatan aydin aragtaan oo iyaguna socdaan diyaaradaha dabaaldega ayaa iyagoo raxaan ah ay ka qayb qaadanayaan waa 4 diyaaradood ay rabtaan lababa dhan ay kula socoto laba way taagan yihiin labana hareeraha ayaa ay ka socdaan diyaaraduhu si xaalad ay ugu qayb qaadanayaan dabaaldega haatana waxaa soo bilaabaya qaybo kale oo ka tirsan deegaanada iyo taasiyada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee markaas sida ay ugu galaan cadowga godkiisa ay ku qaadeen taasiyada dalka looga gaar ahaan cadowga uu ugu galo godkiisa uuna ku tago mid walba waxaad aragtaan in uu hogaaminayo nin taliye ah dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya dabaaldega 22 Oktoobar gegidaas ay aragtaan loo sameeyay fatanbiyaha ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee wacdaraha ay ka muujinayaan diyaaradaha oo iyaguna ka qayb qaadanaya dabaaldega fatanbiyaha haatana waxaa soo muuqda dabaabadihi waa kuwa iyaguna kufaysyada iyo aagaga hore ee cadowga markiiba inta ay galaan baabi'iya ee cabdaadugaha ka dhigan waa noocas iyo kale oo cusuba ka dhisan qalabka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kaarayaasha dadku hareeraha ayaa ay ka taagan yihiin gegida iyadoo oo ay daawanayaan oo si aada ay ula dhacsan yihiin kaarayaasha dabaabadaha iyo beekayada halkan maraya runtaa hore ayaa uu ku ganaawa hareeraha iyo meel kasta oo kalena waxa uu ku leeyahay meelaha uu ka ganawa walba waxaa isku taagan oo hogaaminaya ragga wararka fidiya oo iyaguna qalabkoodii duubista maanta halka ka waxaa socda hubki kala duwanaa ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaanna deedeeyada taangiyada iyo dabaabadaha qaybahan waa dhamaadeen haatana waxaa soo socda kuwa silsilada lahaa oo ah taangiyad dabaabaadkii weeye waa kala nooc qayb waliba waxay leedahay hawl u gaar ah qayb walbana waxaa lagu qabtaa oo ay daafac iyo weerarba ay ka gashaa hawlo u gaar ah kufaysyada iyo arrimaha kale ee weerarka iyo difaacda waa kuwa silsiladaha lahaa meelayo badan ayaa ay ka ridaa tani wax cadowgana markay doonto godkiisa bay ku gashaa walba taliyaheedii ayaa hogaaminaya diyaaradaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyaguna way ka qayb qaadanayaan halkan diyaaradaha waa in aragtaan sida ay u damaashaadayaan saddexdaasi diyaaradood in aragtaan dadweynuhuna aad ugu helayaan marka ay marayaan xoogga dalka Soomaaliyeed qaybintii kalena hoosta gaar ahaan dabaabadihiisii kaleba
iyagoo muujinayaan iyo sida kartida ay u leeyihiin inay u dhammaadsadaan hawada Soomaaliyeed sida ay doonaan cadowgana ay ka yureeyaan diyaaradaha waad aragtaa diyaaradaha kuwana waa kuwii hoosta marayay oo ahaa ciidamadii ilaayaha dadkii dabaabadaha taangiyada iyo saarayaasha kuwana waa dabaabadii gaar ahaan kuwii seelaa lahaa guud gooniya iyo sanqaro gooniya ayaa kuwan ay leeyihiin anaaba ay ku ridayaan argagax iyo baqdin cadowga ciidamada qalabka sida gaar ahaan hubabkii kala duwanaa ee xagga tiknikada gaar ahaan dabaabadihii ayaa socda illee cadowkani arkaya ayaan u soo hamadoodeen aase u soo hiisaceen in uu dalka Soomaaliya uu ku soo qaado weerar xoogga dalka Soomaaliyeed kuwooda tiknikada kuwoodii cirka ahaa iyo qayb waliba way ka qayb qaadanaysaa dabaaldeggan fagaaraha 22 Oktoobar iyagoo dadweynuhu aad ay ula socdaan oo ay la dhacsan yihiin fantasiyadan ka dhacaya maanta weli waxaa socda kuwoodii dabaabaadka ninka taliyaha ee hogaaminaya waa u diyaar mid walba siyaasadda golaha xisbiga dowladda gacanka Soomaaliyeed jaalasiyaad 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 iyo jaalasiyaad Suleymaan Cabdullaah iyo astaantii jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya iyo xisbiga oo adarkaan oo halkan ugu soo bandhigay dadka fanaaniinta farshaxana ay soo bandhigeen waxaa kaloo hareeraha ka xiga astaamihii ururada bulshada أنا لوجو تلا قليل سنة بوردا أفريقيا نادي عروسة كعاد 22 أكتوبر 1999 كان قادة دولة الجمهورية الديمقراطية الصومالية. dadweynuhu fagaaraha kan maanta aydin aragtaan daawadayaal si aadaha ayaa ay u daawanayaan waxyaalaha ay ku soo bandhigayaan halkan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qaybihii kaleba haatan ayaana iyadoo oo uu dhamaaday fantasiyihii la isu diyaarinaya sidii madaxweynuhu uu ambabixi lahaa ee gabida uga ambabixi lahaa kadibna madaxda kale kadibna dadweynaha ciidamada adin aragtaan ee baanka garaacaya ayaa u diyaar salaantii madaxdii ka daawanaysay fantasiyaha dabaaldega 22 Oktoobar madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre oo salaamaya madaxdii sare ee ka tirsanay xisbiga iyo dowladda oo ay weeliyaan madaxdii kale madaxweyne ku-xigeenka Jaale Kulmiye iyo madaxdii kale ee xisbiga Siyaad waxa uu ka degay haatan salaanada rabuka isaga oo u socda gaarigii loogu kala galay fantasiyihii ka dambe markii uu dhamaaday ayaa aydin aragtaan iyada oo madaxweynuhu uu sii jeedo haatan goobtii laga ambabixi lahaa iyada oo barnaamijyadii fantasiyaha intaasi ay ku dhamaadeen madaxweyne Jaale Siyaad iyo madaxda kaleba haatan waxa ay u ambabaxay halkii baawalka ay ka raaci lahaayeen madaxdii kale oo si sagotinaysa madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya xogeeyaha guud ee xisbiga dowladda gacanka Soomaaliyeed Jaale Siyaad Jaale Siyaad oo baawalka furay
haatan waxaa la sugayaa in uu dhaqaaqo baabuurka madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya iyadoo fantasiyaashii intaasi ay ku dhamaadeen madaxdii kalena ay sii tagatay madaxweynaha gaadhigii waa dhaqaaqay gaadhigii ayaa dhaqaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya iyadoo calanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya uu ka babanayo waa aydin aragtaan madaxweyne Jaalasiyaad iyo madaxdii kale oo socota intaasina uu ku dhamaaday fantasiihii loogu talagalay fagaaraha 21 Oktoobar 1983 dadweyne aad u fara badan oo kumanaan ah ayaa ka soo qayb galay maanta fagaarahan 21 Oktoobar ee sanad guurada Beetnaad ee cuntada gacanka 21 Oktoobar 1990 kana qaaday iyadoo lagu soo bandhigay qoraallo fara badan iyo sawirro fara badan oo lagu sharaxay goobta fagaaraha 21 Oktoobar waa ciidamadii muusiga garaacayay oo haatan iyaguna ambabaxaya haatan waa ambabixii iyo damaashaadkii dhammaadkiisa fagaarihii oo haatan dadku ay ka ambabaxayaan kadib markii ay u dhamaaday fantasiihii maanta lagu samaynayay gegidaasi aydin aragtaan ee ah gegida 21 Oktoobar fagaaraha waxyaalaha lagu sharxay waxaa ka mid ahaa qoraalladaasi iyo farshaxankaasi quruxda badan ee aydin aragtaan gaar ahaan guddiga siyaasadda golaha dhexe xisbiga hadwadaha gacanka Soomaaliyeed iyo astaamaha xisbiga iyo dawladda iyo qoraalladaasi kala daraasan ee barwaaqada iyo shacabka tilmaamaya araha ay ka mid yihiin waxyaalaha lagu sharxay ee lagu soo qorxiyey fagaaraha dabaaldega 21 Oktoobar sanad guuradan 14aad ee gacanka 21 Oktoobar haweeneyda madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Sheekh Maxamed Siyaad Barre sawirkiisa madaxweyne ku-xigeenka wadana wasiirka gaashaandhigga Jaale Sabatar xigeenka labaad Jaale Xuseen Kulmiye Abrax Jaale Axmed Suleymaan Cabdulla oo ka tirsan xubin guddiga siyaasadda golaha dhexe xisbiga gacanka Soomaaliyeed ana waxa uu yahay sawirkii madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Sheekh Siyaad